وكم هالعلنية مدحوينه أديك إيو حكومة هذا إيو شعبك ريبا يدبابا وهم هالعلنية سودوين تقييمها عليه عن كلا كلناي آديات بعدهم هالسنتين مرتجلينته آديات بعدهم هالسنتين قلبي غفران عن كلا كلناي عاوة هبين تاريخية وآديات وقيمة بدن وحينا كم تهاون تلمامها كوبان أيليهن دتك ريكون فرقلبيت جارهان دتك مجال البيضاء وأصلوه دولة ما أنت جرت جارهان جمهورية استحاضة هذا جرت حلية دي أتكا أي لديه كرو شنو الأرض ما هي نصيره تعبانة يا هيد ماشي لو نفقي كوكرتي كذا قاضي أي هاي مجالدان مركا مجالدان أو كميلجار مجال حرمت كميلجار كدولة ده كونفور قلبات يدك كده جنب وأنا مهد عليا هذه عاد أدوم مهد سنتين وحنو مهد عليا يا رنتي حكومة ده وهجاميو مدحوينه عبد العزيز أو أي موقته مجالدان أدوم موقته رنتي وحقبت كده عند هراي وإيمان شري إسبدل كل عاي يو infrastructure laga sameeyay laga soo bilaabo mataarka marka laga soo dago ilaa laamiyada kaabayaasha laga sameeyay magaalada iyo si isu bedeshay aad iyo aad baa runtii farxad bayna gelinaysaa waxaan rajaynayaa insha Allah in ay magaalooyinka galana dhismahaasi sii gaaro dadkuna ay dhamaantood ay wada helaan insha Allah wanaagan iyo xasiloonidan iyo deganaantan iyo nabadan magaalada ka muuqata waxaan imid magaalada waxaan soo booqanay dadkayaga iyo dalkayaga waa ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aragnay oo la kulannay madaxweynaha waxaan iska wareysanay xaaladda guud ahaan dalku uu marayo siyaasad ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba xageenu maraynaa waxaan la kulannay cabinetka ama xukuumadda oo aan iska wareysanay iyagana kana dhagaysanay meesha wax marayaan iyo xaalku siduu uu yahay waxaan la kulannay siyaasiyiin iyo ururada bulshada oo aan is wareysanay waxaan la kulmay odayaasha dhaqanka oo wada aragnay aniga madaxweynuhuba ayaguna dareenkooda isay wax u arkaan ayaan dhagaysanay marka waan idin nimid waan idin maqalay waan idin aragnay waan idin dhagaysanay waxaan si fiican u fahamnay dareenkiina iyo sida aad wax u aragtaan iyo haddii ay jirto tabashooyin iyo haddii ay jirto waxyaabo madaxweynuhu uu si gobonimada u sheegay oo kutbaa dilay aan ahayn intaba waan fahamnay waana aragnay waxaanan u hawlgalaynaa dhammaan tabashooyinka wixii la xiriira ku maqan dowladda federaalka sidii loo xallin lahaa insha Allah haddii la yidhaahdo taasaan ka shaqaynaynaa waxaa halkan runtii dadka deegaankan sharaf u ah oo ay runtii noo wada sheegeen oo aan ka fahamnay sida ay diyaar u yihiin u xiiseynayaan u jecel yihiin soomaalinimada midnimada gobnimada Soomaaliyeed xorriyadda Soomaaliyeed iyo karaamada qofka Soomaaliga sida ay u jecel yihiin siday u daneynayaan siday u ilaalinayaan runtii ay uga go'an tahay aad iyo aad bay noo farx gelisay waanan idinka mahad celinayaa waxay noo sheegeen in ayna weligoodba
xaggooda Soomaali dib uga imaan wax Soomaali dhiba inaan weligood ka imaan wax un Soomaali wax u tara mooye history ahaan waa sidaas la sheegay xorriyadii iyo wixii laga soo qaatay iyo kaalintay ku lahaayeen dadka reer koonfur galbeed hadda la isku yidhaa Soomaaliya wixii ka dambeeyay dawladdii wixii dib u geystay hadday tahay afgambi iyo hadday tahay jabhado la abuuro oo deedna dawladda lagu soo duulo iyo haddii ay tahay markii dambe in Soomaalidu isjiirjiirto oo ay dhibaato isu geysato intaba waxay caddeeyeen lana ogyahay inay beri ka ahayeen oo aysan ku jirin ayagu inta midna saa darteed iyagu inay dawladnimadii looga tegay ee dadku ka jabhadeeyeen ee ay Soomaali badani ay dawlado kala aadeen soo duuleen inaysan iyagu aysan shaqo ku lahayn markii dambe dawladdaas timidna la isu yimidna inta caasimadii waa kii lagu shaqayn waayey ay adkaatay deegaano kale waa kii adkaatay kadibna in halkan la keenay oo halkan ay ku shaqaysay ay ku taabagashay wadeedna ay halkan ka baxday dawladdii oo ay xamar sidaas villa Soomaaliya ku tagtay marka arrintaas waa arrin ay tahay in la idin qiro waa arrin ay tahay in la idinka mahad celiyo أنا كم هالسنتين هذه أد بدو هالسنتين دولة الصوماليات وحا واجب كوا إنها كشقيسو أمنية دلكة وحي مسؤول كتاي ومسؤوليات دستورية أي كسارنتها نبت قليدة يبدقبك مواطنك الصوماليين ما يكسجوا ضل يدبت انتبه وحاكلا او دولة اي مسؤولية كسارنتها واجب كتاهي واجب ان ضلك لا إلاليو مدني مديسة دولت يكيسة دادت انتبه إلا إلاليو إني واجب تاهي انتاس انتبه وانت اي runtii ay na tuseen dadka reer koonfur galbeed aan la kulannay hadday yihiin dawladda iyo haddii ay yihiin shacabka intaba ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ta dhuleed iyo tadadeed intaba inay ka go'an tahay muqaddas tahay midnimada dadka Soomaaliyeed inay muqaddas tahay bay ka go'an tahay dawladnimada oo nicmo Ilaahay uu siiyo dadka in ay ka go'an tahay sidii loo dhameystiri lahaa waxa inaga dhiman waxa kalena loo sii taabagelin lahaa waxyaabaha aan runtii aad iyo aad uga fahmay bulshada reer koonfur galbeed ay kamid ay arrimahaas yihiin waxaan rabaa inaan idin caddeeyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya دولة الفدرال كالصومالية مدحوين حسن الشيخ محمود مدحوينها كيهي انت كقواني وانتاس صومالي هشيسة او ولالا او دل كيدا يدد كيدا يدين تيدا بإلاشتها اياغو ميدة او ولالا تاسا كقوان وحانا كقوان ان دل كان uusan meeshan taagnaanin oo uusan aynan isku wareegaysanin ee dalkan horu dhaqaaqo tallaabo hore u qaado dalkeenu waa barwaaqo laakiin waxaa ku nool bulsho aad iyo aad u hooseysa dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan intaba waxaa ku nool bulsho oo cadow ragaadiyey shabaab la yiraahdo ka horna ay colaadii soo ragaadisay marka bulsho daalan oo rafaadsan oo ay rafaadiyeen colaadahaas soo jiray ee dhexdooda ka jiray dawlad la'aantii ay keentay oo dhibaatada weyn
bulshadaas ayaan nahay. waxaan nahay bulsho ay ragaadiyeen daadadka iyo abaaraha isdaba maraya iyo isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ay abuureen. bulsho aada iyo aad ay dhib uga soo gaaray ayaan nahay, aada u weyn. waxaan nahay bulsho dad aada u fara badan oo malaayiin ah oo lagu qiyaaso 3 milyan iyo badh ay kaamamka barakacyaasha kaga jiraan oo ay rafaadsan yihiin aan nahay. bulsho ilaahay u nicmeeyey dhinaca kale markaad fiiriso oo jawigan iyo hawadan uu ilaahay siiyey barwaaqada ah. ilaahay uu siiyey xoolo nool oo ilaahay siiyey geel iyo ari iyo lo. ilaahay ku manaystay. ilaahay ku manaystay dhul beereed iyo webiyo biyo ka sunsumayaan mar walba ka qulqulayaan. ilaahay uu siiyey. ilaahay uu siiyey baddaas dheerarka badan nicmadu ka buuxdo aan la siin dadka dariskana inalaha aan ilaahay siin. ilaahay uu dejiyey meel hab u ah ganacsiga adduunka oo dhan uu maro, inta badan ay maraan, oo billions of dollars laga heli karo. intaasoo dhan marka la tuso waxaa dhinaca kale ilaahay uu inaga dhigay dad mid ah oo Soomaaliya is wada dhalay oo wada dhashay oo luuqad keliya leh oo diin keliya leh oo midab keliya leh oo dhaqan keliya leh oo aan waxba ku kala bedelayn ayaynu nahay. intaa marka la isku daro, haddii banaanka laga istaago oo si caadiga loo taxliiliyo, waxaa lagu tiriyaa dadka inahaasoo dhan ka dhexeeyaan meelahay degan yihiin inay tahay meelaha degan. cawaamishii ama factorieskii tusinayay in ay meeshaasi nabad ahaato oo ay deganaato oo dhan waan leenahay, waan haysanaa. xataa buuro inooma dhexeeyaan iyo bado innaga. waxaana dad isu furan. marka dadka noocaas ayaynu nahay. keliya malaha waxa uun ina kala qaybiyay waa inaan qabaa'il Soomaaliyeedna. hadda qabaa'ilkuna ilaahay suu ugu talagalay maba ay ahayn inay wax kala qaybiyaan. wayba qurux badnaayeen oo in la isku aqoonsado ayuunbayba ahayd oo deedna lagu ilaaliyo nasabka iyo qofku inuu reer hebel yahay, inuu hebel yahay, oo deedna xuquuqi ay ka waajibto oo dhiigku ka mid yahay oo qaraabanimadii ka mid tahay. laakiin in la isku dilo oo dhibaato la isugu abuuro maba loogu talagelin. markaad marka fiiriso waxa ilaahay uu ina siiyey iyo sida aynu u isticmaalnay dhinacii kale, diintii midka ahayd waynu isku dilnay oo iyadii baaba hadda qof waan rumaysnahay kule oo diin baan u socdaa kulaaba intan intuu isku qarxiyo yani eber ka dhigaya oo 800 qof hal maalin dilay. waa diintii raxmadda ahayd aan ku faanaynay ilaahay inoogu naxariistay inuu muslimiin ilaahay nagaga dhigay an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin meeshii la lahaa. oo ilaahay iimaankii una geeyey oo yani ilaahay ina siiyey. yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin. marka meeshii la rabay ina anfacdo diintu oo ay midnimo iyo walaaltinimo iyo inama almu'minuuna ikhwatun ay inoo soo jiido walaalo inaga dhigto, ayadii baa si kale loo bartay, si kale loo fasiray, si kale loo arkay. bahal bayba soo saartay waraabo ah oo xataa waraabuhu dee waxun buu reebaayo qof ama neef buu cunaaye waxaa waaye 100 qof 200 qof hal mar dilaya ayaa soo baxay. marka diinta halkaasay martay. intii aan sheegayn oo dhan xataa madhabka aan lahayn waxaynu nahay shawaafic oo wax walba ka midaysnayn, haddana waad ogtihiin meeshaan marayn. muddo dheer ayaynu dhibaato kusoo jirnay. muddadaas dheer aan dhibaatada kusoo jirnay waxay ina baraysaa sida caadigaa waxay ahayd inaynu cashiro ka qaadano, cashiro ka barano haddaan Soomaali nahay.
markii dhibaato ku soo marto dhibaatada casharaha laga bartaa laakiin ayadii in lagu dhex noolaado sax maaha in lagu dhex noolaado sax maaha waa inaan cashara ka baranno marka arrintii uu madaxweynuhu ka sheekeeyey labadii nin ee cuntada kala boobtay aabaha maxaa dilaydii cashirkan ka baranay maaha inuu kudkii ka barta maaha كنت بادرين إنه كبرت معها because كاسي خيانة إنه كبرت معها يعني إن وحانو باهن هاي وكوجول يستو إنه كتر ترى نقنك إنه وحلا كلا بابو لكن أصلاً إنه باب كاسي كسي برت معها صافتها كان نقن حمو ليمد نقن حمدي هادو كسي قاطو وحيلمت هاي وندتك نبضها أو deedna hadda dagaal kala baray dadkii nabadda lagu yaqaanay ee aan dhibka aqoon ee aan maxaan ku dhahaa dadka weligood qof dilin ee qof dhicin ee akhlaaqda wanaagsan watay ayaa mid waxaa u yimid ayagii dilaya oo dhacaya oo gurigiisa ka qaadanaya oo beertiisa ka qaadanaya oo dhibaataynaya ayuu yimid tii maxay keentay inuu deedna dee markuu meel u baxsada waayay inuu deedna asagina qori qaato oo wax dilo oo wax dhaco oo inta sameeyo yaa guulaystay marka labadoodii waxaa guulaystay kii macallinka ahaa maxaa jira bulshadiibu wuu transform gareeyay dhinac kale u bedelay soo ma jeedin khayrkiibuu ka qaaday shar buu geeyey dadkii uu kaxeeyey marka wixii saxa inay sax noqdaan baan u baahannahay wixii khaladana sidiisa inuu qalad u noqdaan u baahannahay sideedaba waa sidaas marka saxdu maxay tahay meeshii dadkii civilizedka ahaa ee nabadda ahaa ee wanaagsanaa ee dadka jeclaa baa saxa maxaa khaldanaa kii qoriga watay ee dabka ololaya watay ee dadka dhacayay baa khaldanaa marka khaladkiisu waa inuu khaladkiisii noqdaa saxduna waa inay saxdeedii noqotaa bulshadeenna marka waa inaan dib u akrinaa dhibaatadii dhacday cashiradan ka qaadan doono ka qaadanayno waa inaan aan dib ugu noqonaa marka cashiradan aynu qaadanayno waa inay noqdaan kuwa fiican kuwa xun ciddii la timid ayaa u baahan in laga tirtiro marka waxay ahayd inuu midka qoriga wata markuu bulshooyinka yimaado oo in asaga uu la bedelo waayo asagu laakiin inuusan la bedelin waayo dowlad dhiska Soomaaliya iyo mushkilaadka ina haysta bulshadeena haysataay waxay u baahan tahay dhiraan dhirin waxay u baahan tahay boogadhayd waxay u baahan tahay uturid waxay u baahan tahay isku wadid ayay u baahan tahay marka waxaan rabaa inaan idin sheego waxaa naga go'an inaa dadka la isku wado dalka la isku wado la mideeyo la walaaleeyo la tashado ummadda Soomaaliyeed run isu sheegto la yiraahdo war jidkan aan hayno waa mararka qaarkood waxaynu u baahannahay inaan xisaabtanno oo aan dhahno bahashu way nagu dheeraatay jidka ay naga khaldanay jidka aan bedelno anigu marka waxaan mar walba aan dhiirigelinayaa ka shaqaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo kuna soconaynaa in aan dadka Soomaaliyeed midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo isla socodkooda iyo isla jirkooda inaan ka shaqeyno waana meesha kaliya guusha ku jirta waay wax kastoo kale oo guul laga doono guul ma noqonayso haddaan anigu raalli ahay oon xil hayo oo aan faraxsanahay laakiin walaalkay uusan raalli ahayn xilkaasi micno ma yeelanayo xilka aan anigu hayo waa inuu walaalkay raalli ka yahay waa inuu raalli ka yahay waa inuu ogol yahay legitimacy saasay ku imaanaysaa sidaasaan wax isugu ogolaanayna aniguna waa inaan ogolahay walaalkay oo aan kiisana ogolahay si uu kayga u ogolaado waa inaan wax isu reebnaa waa in dadka Soomaaliyeed aan rajo u abuurnaa
rajal aan marna inaan la dhigin waxaan aad iyo aad ugu nuxnuxsanayaa dowladda federaalka ah xukuumadda federaalka ah waxaa ka go'an oo ay dareemaysaa oo ay mas-uul ka tahay amniga dalkan dadka Soomaaliyeed amnigiisa badqabkooda maalkooda caqligooda diintooda iyo intay shariicada loo ilaaliyo intaba inay u ilaalisay rabtaa way ka shaqeynaysaa habeen iyo maalin waa laga shaqeeyaa haddii ay soo baxaan mararka qaarkood waxyaabo ku tusinaya inaysan waxa ahayn aynan arrinta loo aynan meeshaas aan u soconin waxa weeye sax ma aha wixii aan intaa u soconin anaga nama matalo waxaan u soconin midnimo iyo dalkan oo mid ah dadka Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh wixii aan u soconin oo dhan anaga nama matalo anaga waxaan rabnaa jidkaas dalka in lagu hago ayaan rabnaa jidkaa in loo socdaan rabnaa waxay la tahay imaanshahaygaan halkan imaaday farxad bay ahayd aad iyo aad baan runtii ugu farxay waxa aan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego dadka reer Koonfur Galbeed madaxdooda iyo shacabkooda oo qaybaha kala duwan leh runtii ee aan la kulmay waxaan aad iyo aad u jeclaystay xamaasadda ay u qabaan in dalkan uu xoroobo oo shabaabka xoroobo iyo cadowga haysto dhan in dadkan iyo dalkan midnimadiisa la adkeeyo in dalkan loo naxariisto oo dadkan la isku wado inay dalkan iyo dadkani ay walaalo yihiin meel walba ay joogaan iyo in dowladnimada Soomaaliya la dhaqaaleeyo oo la ilaaliyo xamaasadda ay u hayaan runtii aad iyo aad baan ugu farxay waan uga mahadcelinayaa waxaan inoo ballan ah inaan isku kalsoonaano dhammaanteen soo ceshano isku kalsoonida hadday tahay heer state iyo hadday tahay heer federaal dowladnimada in lagu kalsoonaado dowladnimada in la ilaaliyo ayaan runtii aad iyo aad u adkeynayaa annana insha Allah waa ka shaqeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo wixii fariimo ahaa iyo wixii baahiya ahaa iyo wixii laga sugayay dowladda federaalka laga rabay intaba fariimahaas waa qaadnay waa wadnaa Ilaahay idinkiisna waa ka shaqeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo annana fariimaha yagii bulshada kala duwanna waa gaarsiinay madaxdana waa gaarsiinay sidaas ayaan insha Allah ayaan ku wada shaqeynaynaa oo aynu isku ognahay inuu dalkan uu ku socdo haddii Ilaahay yiraahdo Koonfur Galbeed waxay ka mid tahay isteetyada ugu muhiimsan ka midka ah isteetyada xubinta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya talooyinka dalka iyo guud ahaan hagidda dalkana waxa waaye aas iyo base ayay u tahay haddii Ilaahay yiraahdo wada tashi iyo wada jir iyo wada socod ayaanan ku gaaraynaa ahdaafta waaweyn ee aynu leenahay waxaan rajaynayaa guul weyn iyo horumar insha Allah Southwest iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana hubaa dhulkan iyo deegaanadan oo sidooda ah deegaanada ugu barwaaqada badan Soomaaliya in ay waqti dhow haddii Ilaahay yiraahdo ay wada xoroobi doonaan insha Allah oo ay ka xoroobi doonaan kuwa haysta meelaha qaarkood ee shabaabka ah shayaatiinta ah inay jidad ku furmayaan haddii Ilaahay yiraahdo oo ay laga kaxayn doono dowladda way ka go'an tahay qorshaheedana waa la wadaa waana ka wada shaqeyn doonaa annaga iyo stateku waa ka wada shaqeynaynaa siday nooga go'an tahay dhammaan stateyada kalena in ay ka xoroobaan khawaarijta dadka Soomaaliyeed oo dhan isu furmaan noloshiina ay u wanaagsanaato oo la isugu yimaado maalmahan waxaa kusoo gabagabeynaya aad ujeedeen dee waxaa waaye madaxweynahan ka bartay mahmaadee digama dhagayerid waxaa waaye wixii
إن maalmahan taagnaa meelo badan runtii aan sida aan habboonayn loo qaadqaaday dadka reer koonfur galbeed runtii waa nagala hadleen waana aragnay horeyna waa uga shaqaynay haddana insha allah waxaan rajeynayaa iska gabagabowday waxyaabahaas su-aal kama taagna wadaniyadda iyo dal jacaylka iyo dad jacaylka reer koonfur galbeed doodna kama taagnaba waxaa waaye dadka ugu wanaagsan saan sheegay qarankan aan wax nabara weligood u geysan waaye waxayna u taagan yihiin inay sii ilaaliyaan marka dalkeenna oo aada ogtihiin inay hadeertaan xaalada aada adag meelaha qaarkood ka jiraan waxaan rajaynaynaa inaan dhammaanteen u istaagno ilaalinta iyo dalkeenna iyo dadkeenna oo runtii muqadas agteenna ka ah qof kastoo soomaaliya agtiisa ka ah waxaynu isku ognahay dalkeenna inaynu ka xoreysano cadowga amnigeennana inagu suganna gacanteenna ugu dambeyn dal aan asagu amnigiisa suganin oo xuduudihiisa suganayn xor ma ah marka inaynu amnigeenna inagu lafaheena ku suganno ayaynu ka shaqaynaynaa haddii ilaha idhaahdo oon cidna inoo ilaalin oon inagu aynu isku filaano insha allah intii noo ilaalinaysay nagula dadaashayna aan dhahno waa mahadsantihiin waxaa waaye hadeertaan annaga isku filan taasaynu u soconnaa insha allah taasaan wadayna ma jirto saan hore u sheegay mana ogolaanayno dalkeenna dawladana iskuma laynayaan siyaasadana iskuma laynayaan annaga dalkeena innaga iska leh waxaana ka shaqaynaynaa in aan wixii dawlado kale wixii ka dhexeeya in ayaga ka dhexeeyaan laakiin soomaaliya halka dhib ee jiraana waan ognahay halkaa dhibna innaga ma wadno soomaali ma wado soomaaliya waxay doonaysaa nabad soomaaliya waxay rabtaa in nabad lagu wada noolaado iskaashi dhaqaale mid amni intaasaan raadinaynaa inagu intaasaan ka doonaynaa deriska intaasaan ka rabnaa adduunka intaasaan ka rabnaa caalamka waxaan rabnaa inaan ilaalino dhammaanteen cidna inaanan ku xadgudbin haddaan nahay soomaali qawaaniinta adduunka kuma xadgudbayno deriska kuma xadgudbayno dawladaha kale kuma xadgudbayno nabad ayaan doonaynaa inaan kala faa'iidaysanaan rabnaa in shucuubtu isu furantaan rabnaa in la isdhex galaan rabnaa in la wada noolaadaan rabnaa annaga marka waxaynu risaaladeena waa nabadgelyo waa risaaladeena waa salaam waa wada noolaansho laakiin midka hoosta nooga xariiqani waxaa weeye annana intaas aan rabno inaan cidna ku samayn inna lagu sameeyo annagana ma rabno ma ogolin annagu ma rabno inaan cidna ku samayno intaas annana ma rabno mana ogolaanayo in annagana lagu sameeyana ma ogolaanayno intaas un weeye adduunkana sidaasaa loogu dhaqmaa sidaasay adduunyadu almucaamalatu bilmithli ay u tahay diblomaasiyaddu saan kuula dhaqmay iyo la dhaqan sidaas waaye dadkeenana haddii ilaha idhaahdo aynu intaas waxaan rabaa inay wada dhegaystaan inay wada maqlaan qof kasta oo soomaaliya oo aan ognahay oo maanteerta ay amnigiisa sugayaan ciidamada inala jooga ee mandate-ka u haysta dowladda soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah qofka soomaaliyeed amnigiisana ma beedaraynayso mas-uuliyad xumana ma samaynayso ayadaa mas-uulka ah marka dadkeenu waa inay ku kalsoonaadaan inayna dowladda soomaaliyeed aysan dadkeeda aysan cadow u loogeynin inaysan dadkeeda diyaar u ahayn intay ciidamadu ka baxaan oo ka baxa dhahdo ciidamo inay deedna shabaab u imaadaan ay gowrgowracaan dowladda soomaaliyeed ma aqbalayso suurtagal maaha dowladda soomaaliyeed qorshay la iman qorshaha hadday dadku inay u baxaan ilaan weligood laynoo joogi maaye meesha laga baxayo waa inaynu inagu amnigeedana la warin waxaa ugu horeeya oo hormuud ka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel kasta jooga hadday tahay jubbaland waxaan rajaynaynaa inay hadday ka baxaan ciidamada joogaayay cid walba leh waxaa waaye qorshaa jira oo dowladda federaalka ay leedahay
oo markay meel laga baxo in ciidankaas lagu wareejiyo ciidan kale ay tahay. waxaana ka wada shaqaynaynaa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo ay ugu horeyso koonfur galbeed oo madaxweynaheedu joogo. xamar baan wada tegi doonaa insha allah, noogu imaan doonaa, waanan ka wada hadli doonaa markii la gaarade maxaan ku dhahaa in la baxaba oo ay ciidamada AMISOM ay baxayaan. say u baxayaan maxaan ku bedelaynaa, sidee amnigiyaa sugaaya. hadda meelo badan bay haddaba ka baxeen saaad ogtihiin. 7,000 oo askari oo AMISOM a baxday. 7,000 ee askari ee baxday meel ay inta ka tageen, markay ka tageen shabaab qabsaday ma jirto. 7,000 ee askari ciidamadeena bedelay, amnigoodina waa sugan yihiin. dadkeeni ciidamadeeni baana haya. marka madaxtooyada ugu horeysa oo anagu joogno AMISOM baana sugaysa amnigayaga, laakiin hadda wiilasheena iyo gabdhaheena amnigayaga suga. meelo kaloo fara badanna waa jiraan. marka ilaa iyo 11 maxaan ku dhahaa 22 goobood oo ayay ciidamadeenu ay amnigeedu la wareegeen, oo ay degan yihiin, oo ay amnigoodii sugayaan, oo aan wax dhibaataa ka jirin, xoogga dalku joogaan. meelaha hadda kalena sidaas oo kale un waaye. markay meel ka tegayaan waa in laga wada fadhiistaa. waxaa waaye ciidankii bedeli lahaa inuu joogaa la rabaa, oo meesha tago oo amniga sugo ayaa laga rabaa. waa waajibka dowladda ay ka shaqaynayso, waa waajibka maxaan ku dhahaa haddaan nahay heer federaal iyo heer stateba waajibka noo yaalla waaye, oo amniga aan kula wareegayno. marka amnigeena aan kula wareegayno inagu wixii intaas waxaan ka ahayn oo dhani oo soo baxaayay waxaa waaye waa iska huuhaa aan leeh, waa iska huuhaa waaye, wax soconayaan ma aha. marka dadkeenu inay ku kalsoonaadaan, dowladdooda ku kalsoonaadaan ayaa loo baahan yahay. taana intaasaan ka dhihi lahaa, oo aad maalmahan aan filaya inaad shanqartaas lama maqlayay, dadkiina dee cid waliba si u fasiratay, siyaabo badan loo qaaday, qaarkood ayna habboonayn, dadka Soomaaliyeed ay kala fogeeyeen, aan wax loo baahan yahay aan ahayn. waana ka xunnahay runtii. waxaanan aan rajaynayaa in fariinta rasmiga aan annaga leenahay ee dowladda inay tahay mid aan annagu dirayn, laakiin mid aan dadka aan dowladda aan matalaynin fariimaha ay dirayaan, ama Facebook laga sheegay ama meel kale laga sheegay, dhinacay rabaan ba ka yimaadaane dadka Soomaaliyeed inaysan waxba ku qaadan ayaa loo baahan yahay. inay aada uga digtoonaadaan waa loo baahan yahay. wax kastoo kala qaybinaya oo dadka fitno dhex dhigaya waa loo baahan yahay inay aada isuga ilaaliyaan. madaxweyne waan dheereeyey dhammaantiin. mar kale waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyntii, waxaan idinka mahad celinayaa casho sharaftan qiimaha badan ee loogu sagootinayo. waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaynan tani noqonayn tii ugu dambeysay booqashadan. marar badan ayaynu isku soo noqon doonaa haddii ilaah yidhaahdo. mar walbana waxaan idin rajaynayaa horumar iyo maxaan ku dhahaa amnigeenii oo sii xoogeystay, wada shaqaynta heerarka dowladda oo sii xoogeysatay, iyo shacabkan qiimaha badan oo insha allah aan rajaynayo inay ayaguna ku noolaadaan nabaddaas iyo wanaag iyo farxad iyo reerayn intaba. aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.